durba reer Karaan waxay qabaan in dhaliyahani uu Diamond ugu qiimo badan yahay maadaama uu lugtiisa farta ugu saaray 3 dhibcood ee ugu horeysay 2024 tartanka degmooyinka oo ay kula baratamayaan ilaa 20 degmo oo kale. Cabdiraxmaan Daahir Aadam waa magacii ugu saameynta badnaa ee laga soo diiwaan geliyo amaba laga hadalhayo kulankii saddexaad ee tartanka degmooyin gobolka Banaadir iyo degmada Balcad kaas oo isagoo rimaadeen labada degmo ee kala Karaan iyo Hodan. Sida la filayay labada degmo waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed cajiib ah balse indhaha kulanka ayaa ku sii jeeday qaar ka mid ah magacyada aad uga xifaaltama Somaliland kuwa oo sanadkan shitay tartanka degmooyinka gobolka Banaadir aadna ugu badan. Cabdiraxmaan Daahir safar dheer ayuu u soo galay sidii ugu ciyaari lahaa Xamar waliba uu qayb ugu noqon lahaa ragga rajeynaya inay rumeeyaan riyada Karaan oo ah ku guuleysiga koobka degmooyinka. Durbawa kulankii furitaanka waxay sameeyeen saameyn aan inaba caadi ahayn iyo saadaalin ku aadan in Karaan ay qayb ka tahay degmooyinka ugu xooggan ee tartanka loo saadaalinayo. Saameyntan xooggan uu durba abuurtay ayaa keentay in reer Karaan ay hadal hayaan waxaana xidigan uu ka yimid dhanka Hargeysa sidoo Cabdiraxmaan u arkaa ka ciyaarista Xamar iyo matalista degmada Karaan. والله الحمد لله بالفك بكيبت تريني في عمان قاتي توبر في عبال لسي مع البيت هذا بابل كل لدي عليه إن شاء الله نروح رجالي الجولي سنة الحمد لله ما تعيرت كذا الجولي سري عيارات طبعا شاحر رجالي الجولي والله تبدأ سكوبيل كريم وتشيران تواحد رجالي هرت على حل مهمة من شو بيدا كوكا قاضو ده اللي يرتعرو باش كريم منه حالي بدي أبغى بهذين كواحد كله حالي بدي أبغى بهذين أروح هالك وتشيده باش هو يرتع إلى كوكا قاضنا كارا عن كوبو كأنه إن شاء الله واحد رجالي تيرارو دلال الدنيا طالعة كل دلالك كل جيم وهاي تيم كردم بوها الحمد لله والله يرت قوي مسمر كذا حوي إنه اللي هاي 3 دقائق نسيه توان دلال ما شاء الله هاي الحمد لله.